ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka dalkeena Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo 6 bari uun laga joogo markii xilka loo dhaariyay ayaa shaqadiisii ugu horeysay booqasho ku yimid xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalada Jigjiga kulana ballaaran la qaatay hogaaminta ugu sareysa xukuumadda deegaanka shaqaalaha dawladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka umurtaas ku saabsan faafayntiisa wariye Maxamed Axmed ayaa inoo eegay wafdi ballaaran oo heer saraha uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayna u helinayeen ra'iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Dhamaqe Mukanan wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Warqana Gabaye madaxa xarunta dhexe ee xisbiga EPRDF mudane Shifarraw Shukute madaxweynaha dawladda deegaanka Oromada mudane Lama Magarsa iyo wasiirro kale oo heer federaal ah ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Garaad Wiilwaal ee magaalada Jigjiga waxaana si diiran u soo dhaweeyay mas'uuliyiinta deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay ugu horeeyaan madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar afhayeenka golaha baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isaaq madaxweyne ku-xigeenada deegaanka golaha wasiirada deegaanka odayaal dhaqameed iyo dhammaan qaybaha bulshada magaalada Jigjiga waxaana wafdiga uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ونسشو يقرأ كدب الله كل ماي إنك بدن كنتم لما أنا ويس على المضي أو ككوبنا دل يركز وجد بيش جبوي يقبائل الله ذكلاء الصومال ذا أو إس على المضي ولو جبنا يفكر هذا يتقن إيش جومي سجا يسيد برشة كده جري جري الشرح لقى سيء عرفت أنه أي مسؤولين تأذوا الرياقين كذب أي واحد لقوا دقلين هو كشرك كالي وأن أو أي بوحدافين أو ضيال دقمات كديان كو يسوق جرا وقاسيدا سلطان ماذا جرادة عقاشة وحجرتك علماء الدينها أقويها كي يشغلها كالدون ديان كا وحنا أوجه رأي ماذا شاسخ الضبير أو دحل جلا هو قوة تنتهي من ماذا يستعيل كقومية ذا يشعبها ذلك كسجدي رئيس الوزراء جمهورية الديمقراطية الفدرالية إثيوبيا دكتور أبي أحمد زمان شعب وينها صوماليدا إثيوبيا የተከበራችሁ የፌደራልና የሁለቱ ክልሎች ከፍተኛ የሥራ አመራሮች የተከበራችሁ ገራዶችና ኦጋዞች የተከበራችሁ ሱልጣኖችና የአገር ሽማግሌዎች መርወይኒ ኢዮ መደናያል የኢትዮጵያ ሶማሌ ብሔራዊ ክልል ርዕሰ ከተማ በሆነችው ጅግጅጋ የመጀመሪያውን የሥራ ጉብኝት ለማድረግ እድል በማግኘቴ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። mudanayaasha sharafta leh ee mas'uuliyiinta heer federaal iyo madaxda ugu sareysa ee labada deegaan mudanayaasha sharafta leh ee odayaal dhaqameedka deegaanka isugu jira garaadada ogaasyada iyo salaadiinta marweyn iyo mudanayaal waxaan halkan ka cadeynayaa sida weyn ee aan ugu faraxsanahay inaan fursad u helo in boqoshadaydii hawleed ee ugu horeysay inaan ku imaado xarunta dawladdeegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga በእያንዳንዷ ዕለት መላው የሀገራችን ሕዝብ የንጋት አብሳሪ ብርሃን ከሚናፍቅበት የሀገራችን ምስራቃዊ ክፍል ከምትገኘው የኢትዮጵያ ሶማሌ ሕዝብ ለምስራቅ ኢትዮጵያ ሰላምና ደህንነት ቃፊር ሆና የኖረ ብቻ ሳይሆን ዛሬም በዚሁ አገራዊ ፈለግና ጽናት ጠንክሮ በመቆም ላይ ያለ ጀግንነቱን በከፍተኛ አድናቆት እንደምንመለከት ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። የኢትዮጵያ ሶማሌ ሕዝብ በውጭ ኃይሎች ወረራና ትንኮሳ እንዲሁም በተፈጥሮ በትርና ከባድ ፈተና የተነሳ የክልሉን እምቅ ጸጋ የማልማትና የመጠቀም ፋታና እድል በመነፈጉ ትውልድ በተቀባበለው የጊዜ ርዝመት የድህነት ገፈት ሲቀምስ መኖሩ በቁጭት ይታሰባል።
dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo jaahan xiga dhinaca bariga ee iftiinka qoraxda lagu waabaristo subax walba ka soo baxo ayaa waxa uu deegaanku doorka ka ciyaaro xasiloonida iyo nabadgelyada dalka sidoo kalena uu shacabka deegaanku u istaagay midnimada qaranka kuna muujiyay geesinimadiisa taasoo aan halkan ka cadeynayo isla markaana si weyn u bogaadinayo waxaana xusid mudan in shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waqtiyadii hore xoogaga nabadeedka dibadda dhibaatooyinka baan ay ku hayeen iyo waliba dhibaatooyinka xaaladaha dabiiciga ah ee jiray ay fursad u siin waayeen deegaanka in deegaanku ka faa'iideysto kheyraadka diin ee uu leeyahay arintaasna waqti dheer shacabka deegaanka horseeday saboolnimo baan የኢትዮጵያ ሶማሌ ሕዝብ እንደ ሁሉም የሀገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በጫንቃው የተጫነበትን አስከፊ የድህነት ቀንበር ከላዩ አሽቀንጥሮ ለመጣል ከተቀሩት ኢትዮጵያውያን ወንድሞቹ ጋር በአብሮነትና በአጋርነት መሰለፍ ያለውን ፋይዳ በመገንዘብ ኢትዮጵያዊነትን በልቡ ይዞ በየጎራው በመሰለፍ ወራሪዎችን የተፋለመበት ገድል በሁሉም የሀገራችን ሕዝቦች ልብ ውስጥ የታተመ አኩሪ ገድል ነው። በኢትዮጵያችን ታሪክ ውስጥ ዛሬ ያለን ማንነትና ሉዓላዊነት ከእነ ደጃዝማች ዑመር ሰመተርና ሰይድ መሐመድ ደጃዝማች ዑመር ሰመርተንና ሰይድ መሐመድ አብዱላይ ሐሰን ብሎም በስም ዝርዝሬ ከማልጨርሳቸው የኢትዮጵያ ሶማሌ ልጆች የደምና አጥንት መስዋዕትነት ውጭ የሚታሰብ አይደለም። shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sida dhammaan qoomiyadaha iyo shucubaha dalkeena Itoobiya ayaa si heeriyada saboolnimada iyo dib u dhaca ku habsatay uga gudbo isla markaana shacabka deegaanku garwaaqsaday in isaga oo kaashanaya walaalaha kale ee Itoobiyaanimadana ku dhaadanaya oo dhinac walba kula saftay shucubaha kale ee dalka isla markaana la halgamay cadowga ku soo duulay dalka halgankaasna oo noqday mid taariikhda baaldahaba ka galay kuna daabacan qulubta shacabweynaha dalkeena waana halgan lagu faano taariikhda fog ee uu dalkeennu soo maray jiritaankeenna iyo madax bannaanida aan maanta haysanno ee aannu ku noolaanayno waa mid ku timid halgankii ay waddanka u galeen halyeeyadii sida dajaazmaash cumar samatar iyo weliba sayid maxamed cabdille xasan iyo weliba kuwa aad u tiro badan oo aanan magacyadooda halkan ku tirin karin oo ah halgamayaasha u dhashay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaana naftooda iyo dhiigoodaba u horay dalka dhankiisa waxaa khudbad taa la mid ah isna madashaasi ka soo jeediyey madaxweyne cabdi maxamuud cumar isagoona socdaalka ra'iisul wasaaraha ku tilmaamay mid taariikhi ah ugana mahad celiyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo booqashadiisa uu ku yimid deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga isagoo oo xilligii loo doortay ra'iisul wasaarenimada ay ka soo wareegtay muddo ka yar 7 የዚህ ልዩ መድረክ ታዳሚዎች ክቡራትና ክቡራን በቅድሚያ ሕገ መንግስታችን እውን ያደረገው የህዝቦች እኩልነት አብሮነትና አንድነት ህያው ማሳያ ወደ ሆነው የክልላችንና ዋና ከተማችን ጅጅጋ እንኳን ደህና መጣችሁ። በተለይም ታላቅ የሆነችው ሀገራችን ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የመምራትን ከባድ ኃላፊነት በተረከቡ ጥቂት ቀናት ውስጥ ቀዳሚ ትኩረት ሰጥተው ለሥራ ጉብኝት ወደ ክልላችን የመጡትን የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድን በራሴና በክልሉ ህዝብ ስም እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ይፈቀድልኝ። ka qaybgalayaasha sharafta leh ee xafladan quruxda badan ee gaarka ah marweyn iyo mudanayaal bagada xarunta tusaalaha sinaanta qoomiyadaha wada noolaanshaha isqadarinta iyo isku dulqaadashada oo dastuurkeenu xaqiijiyay ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo deegaankayagaba aad nabad ku timaadeen ayaan idin leeyahay
kadib markii uu ra'iisul wasaaraha waddankeenu Dr. Abiy Ahmed maalin dhow u qaaday mas'uuliyadda iyo xilka culus ee jagada ra'iisul wasaaranimada waddankeena iyo hogaaminta shacabkaba in uu maalmo kooban gudahood socdaalkiisii shaqo ee ugu horeeyay uu ku yimaado deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaasna uu fiiro gaar ah nasiyo aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca shacabka deegaanka ayaan uga mahad celinaynaa waxaana leenahay bagaad nabad ku timaadeen haddaba haddii aan dhahno socdaalkan shaqo ee dhaqsahayihi waxa uu muujinayaa sharafta uu ra'iisul wasaaruhu u hayo shacabka iyo in uu fuliyay ballanqaadkiisii ahaa waxaan diiradda saaraynaa ka shaqaynta wada noolaanshaha iyo nabadgelyada shacabka waddankeena buunbuunin naguma noqonayso xaqiiqdii ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የክልላችን መንግስት መሪው ፓርቲ ኢሶዲባ ብሎም የኢትዮጵያ ሶማሌ ህዝብ የክቡር ዶክተር አብይ አህመድን የኢህአዴግ ሊቀመንበርና የኢትዮጵያችን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ መመረጥ የተቀበለው እንኳን ኢትዮጵያውያን ደስ አለን በሚልና ስሜት እምነት ነው። እኔም ዛሬ የሚቀበላችሁ ይህንኑ ደግሜ እንኳን ደስ አለን በማለት ነው። ra'iisul wasaaraha sharafta leh iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka sharafta leh xisbiga talada deegaanka haya ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya iyo shacabweynaha Soomaalida Itoobiyaba markii ra'iisul wasaaraha la doortay Dr. Abiy Ahmed waxa ay dirayeen dareenkooda farxadeed anigu marka labaad ayaan maanta ku hambalyeynaya hambalyo bagaan farxad ku wada gaadhnay ayaan ku leeyahay ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡራትና ክቡራን ተሰናባች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢህአዴግ ያፈራችው የዛሬው ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ኢህአዴግ የሆኑ ናቸው። የተጓዙበት የሚጓዙበት የፖለቲካ መስመርም የኢህአዴግ መስመር ነው። ልዩነት ካላቸው ከህወሓት ኢህአዴግ አንዳቸው ከደህድን ኢህአዴግ እና የዛሬው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ክቡር ዶክተር አቶ አብይ አህመድ ደግሞ ከኦህዴድ ኢህአዴግ የተገኙ መሆናቸው ብቻ ነው። ምናልባትም ነገ የምንኖረን ደግሞ ከኢሶዲባ ኢህአዴግ የተገኘ ሊሆን ይችላል። የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ስኬት የኢህአዴግ ስኬት ነው። የእርሶ ስኬት የኛ የኢሶዲባ ስኬት ነው። የእርሶ ስኬት የኢትዮጵያችንና የሁላችንም የኢትዮጵያ ልጆች ስኬት ነው። ከዚህ በመነሳት ከዛሬው ዕለት አንስተን የኢትዮጵያና የህዝቦቿ ሰላም፣ ልማት፣ ደህንነት፣ እኩልነት ብሎም ዲሞክራሲያዊ ፌደራላዊ አንድነት ለማረጋገጥ በሚደረጉት ጥረት ሁሉ የክልሉ መንግስት፣ የክልሉ ፓርቲና የክልሉ ህዝብ በቁርጠኝነት እንደምንሰራ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። mudane ra'iisul wasaare mudanayaal iyo marwooyin ra'iisul wasaarihii xilka ka tegay iyo ra'iisul wasaaraha maanta waa isku mid oo waxba kuma kala duwana oo labaduba waa EPRDF oo kaliya haddii ay kala duwanaan jirtana waxay noqon inuu midi ka soo jeeday ururka TPLF ee EPRDF midna uu ka soo jeedo SEPDM ee EPRDF iyo mudane Dr. Abiy Ahmed oo OPDO ee EPRDF ka soo jeeda nidaam siyaasadeed oo ay ku kala duwan yihiin haba yaraatee ma jirto waayo dhammaantood waxa ay ka soo jeedaan EPRDF berritana waxaaba laga yaabaa inuu xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya oo EPRDF ah inuu xilka waddanka qabto si kastaba ha ahaatee guusha ra'iisul wasaaruhu waa guusha EPRDF guusha ra'iisul wasaaruhu waa guusha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya guusha EPRDFna waa guusha Itoobiya guusha Itoobiyana waa guusha dhammaanteen waxaa intaas dheer maanta laga bilaabo xukuumadda deegaanka xisbiga deegaanka hogaamiya iyo shacabweynaha deegaankuba inaan si ka go'naanshiyo leh uga wada shaqaynayno howlaha horumarka nabadgelyada sinaanta cadaaladda iyo midnimada dimuqraadiyadeed ee nidaamka federaalka ah ayaan idin xaqiijinayaa dhankooda odayaal dhaqameedka deegaanka ayaa su'aalo ku saabsan horumarka iyo nabadaynta labada deegaan ee walaalaha ah ee Soomaalida iyo Oromada weydiiyay wafdigan uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Abiy haddaba maadaama waa inta badan su'aaluhu ay taabanayeen nabadaynta labada shacab ee Soomaalida iyo Oromada ayaa waxaa hadal kooban ka yidhi madaxweynaha deegaanka Oromada mudane Lamma Magarsa እንደ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንትነቴ ማናቸውንም ነገር በኦሮሞና በሶማሌ መካከል
ለሰላም ለአብሮነት በሚደረገው ማናቸውም ስራው ውስጥ ቅድሚያ ሰጥቼ እንደምሰራ በእናንተ ፊት ቃል መግባት ፈልጋለሁ። anigoo ah madaxweynaha deegaanka Oromiya waxaan hortiina ka ballan qaadayaa in wax walba oo nabadda iyo midnimada shacabka Soomaalida iyo Oromada suura gelinaya in aan muhiimadda siinayo kaalinteedana aan ka qaadanayo ayaan hortiina ka cadeynayaa. ሁለተኛ ከኦሮሚያ ክልል የተፈናቀሉ ወንድም ሶማሌዎችን አብዲ መሐመድም እንኳን ጣልቃ ሳይገባ በራሴና በግሌ ኃላፊነት ወስጄ ወደ ቀድሞ ቤታቸውና ቦታቸው እንዲመለሱ እናደርጋለን። tan labaad shacabka Soomaalida ee ka soo barakacay deegaanka Oromiya iyadoona uuna madaxweyne Cabdi Maxamed Umar iga caawinaynin ayaan si shakhsi ahaanteeda mas'uuliyadeeda u qaadayaa inaan dib ugu soo celinayno goobihii iyo guryahoodii ay ka barakaceen dadka Soomaalida ahi. intaasi haddaan dhaafno oo aan xalino dhibaatada shacabka labada deegaan ee xoolo dhaqatada ahi ee deegaanka Soomaalida iyo Oromada waxa haysata dhibaatooyin dhinaca xoolo dhaqatada ah waxayna labada dawlad deegaan ka shaqaynayaan inay iska kaashadaan shaqooyinka waxtarka u leh labada shacab ee xoolo dhaqatada ah waxaana horey u jiray xafiisyada horumarineed oo labada deegaan ay iska kaashan jireen oo xafiiskoodu ku yaalay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga taasina waan soo celin doonaa waxaana jira qorshayaal aan isla qaadanay aniga iyo walaalkay madaxweyne Cabdi Maxamed Umar inaan ka wada shaqayno aniga iyo madaxweyne Cabdi Maxamed Umar waxaan qaadanaynaa mas'uuliyadda inaan ka wada shaqaynayno hawlaha horumarka ugu dambeyntiina waxaan idinkula dardaarmayaa inaad muujisaan niyadsan aragti farxadeed iyo qalbi saafiya oo si shakhsiyadeed iyo si guudba aan uga wada shaqaynayno danaha iyo midnimada shacabkeenna oo hogaaminta diimaha ugaasyada iyo cid walba kaalinteeda ay ka ciyaartaa waad mahadsantihiin በአዲስ መንፈስ በአዲስ ልብ በአዲስ አስተሳሰብ እነኚህ የወደቁ ወገኖቻችንን እናንሳ በህዝቦቻችን መካከል ወንድማዊነቱ እንዲቀጥል በግላችንም በተለይም ደግሞ የሃይማኖት መሪዎች እና ሱልጣኖች ኡጋዞች ሁላችንንም የየበኩላችን ድርሻችንን እንወጣ የሚለው መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። intaasi kadib ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed ayaa tusaaleyay in maadaama oo labada shacab ay walaalo yihiin taariikh dheer iyo xuduud dheerna ay wadaagaan isla markaana ayna meel dhaba ku kala maarmin inay ka dhigan tahay dad ul iyo diirkeeda madaxweynayaasha labada deegaana ay matalaan labada shacab. በመጀመሪያ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ አብዲ መሐመድና የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳ ሁለቱም በመነሳት የሶማሊና የኦሮሞ አንድነት በእጃቸው እንዲያረጋግጡልን ጠይቃለሁ። marka hore madaxweynaha deegaanka Oromiya mudane Cabdi Maxamed Umar iyo madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Lama Magarsa labadoodaba waxaan ka codsanaynaa inay istaagaan oo gacmaha ay isqabsadaan muujiyaana midnimada shacabka labada deegaan. ugu dambeynna shir kabineeda oo daqiiqada yar ahaa ayaa waxa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Umar iyo hogaamintiisu ay sii sagootiyeen wafdiga uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyagoo si nabadgelyo ah uga duulay garoonka diyaaradaha ee Garaad Wiilwal ee magaalada Jigjiga.